بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكبرانو ويدينتن what is a corporate social responsibility oo loo soo gaabiyo CSR mas'uuliyadda shirkadda kaga aadan bulshada ama corporate social responsibility waxaan ku qeexi karnaa in ay shirkadda ku howlgasho kuna shaqayso nidaam waafaqsan anshaxa kana fakirto horumarka iyo saameynta ay ku yeelanayso bulshada. Si kale haddaan u dhigno waxaan dhihi karnaa waa in ay shirkadda ku shaqayso fikir dhaafsiisan ama ka ballaaran in ay lacag samayso oo keliya. Badi dadka waxa ay yaqaanaan oo keliya in mas'uuliyadda saaran shirkadaha ay tahay in faa'iidada ay samaysay ay wax kala wadaagto bulshada inta u baahan, balse maanta waxaan rabnaa inaan fahanno in CSR ay tahay 4 heer oo kala duwan oo ah kuwa hortiina ka muuqda. Waxaanan uga hadlaynaa mid mid. Haddaan ku hormarno kow oo ah economic responsibility, waa in ay shirkadda ayadoo samaynaysa faa'iido haddana ummadda ay u keenaan ama ay ka gadaan badeecad tayo fiican leh ama ay u qabtaan adeeg heer sare ah. Tusaale aan dhahno waxaad ka ganacsataa raashinka, ka waran intii aad ummadda u keeni lahayd raashin dhacay ama nafaqo fiican aanan lahayn haddaad keentid oo aad ka ganacsatid mid heer sare ah oo ummaddii waxtar u leh. Waxaad heshay faa'iido, sidoo kalena ummaddii waxaad ka joojisay wixii dhibayay. Haddii uu qofka ganacsadaha ah sidan dambe yeelo, waxa uu helayaa faa'iido, ummaddiina waxa uu ka kasbaday ajir, waa haddii uu niyeysto. Midaasna waxaa loo yaqaanaa economic responsibility. 2 waa legal responsibility. Waa in qofka uu hoggaansamo shuruucda ka jirta waddanka ama shirkadda, kuna dadaalo ummadda u shaqaynaysa in loola macaamilo si heer sare ah oo ay helaan jawi ku munaasab ah shaqada ay qabanayaan. Tusaale aan dhahno dowladda waxa aad siisay canshuurtii markaa loo arkayay inay waajib kugu tahay, sida canshuurta wadamarista laga qaado baabuurta oo kaleeto shirkadda u shaqeeya ama bajaajta caadiga loogu shaqaysto oo kaleeto iyo wixii la halmaala. Haddii aad sidaas yeeshid, waxa aad samaysay legal responsibility oo dadkii dowladda ka shaqaynayay ee loo igmaday inay ummadda u adeegaan berri ma haystaan wax ay ku andacoodaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa, iyo ummadda marka la weydiiyo maxaanan ummadda loogu shaqaynin oo aanan wadooyin loogu dhisin oo noloshooda in la hormariyo loogu dadaalin, maadaama iyaga ay qaadeen mas'uuliyaddaas. Balse haddii ka shacab ahaan, ka shirkad ahaan aan bixinno waxa aan samaynay, waxa loo yaqaano legal responsibility. 3 waa ethical responsibility. Waa in la dhaqan geliyo anshax wanaag, cadaalad la falo iyo wixii la halmaala. Tusaale aan dhahno macallimiinta waxa ay mushaar ku qaataan inay ardayda u shaqeeyaan oo ay waxbaraan, haddaba waa inay ku dadaalaan inta karaankooda uu gaarsiisan yahay in waqtigii xiisadda loogu talagalay iyo cashiradii loogu talagalay inay ardayda siiyaan si mushaarkooda uu xalaal ugu noqdo. Ardaydiina waxa ay fiirinayaan sida barayaasha ay shaqadooda u gutaan oo berri marka ardaygaas uu mas'uul noqdo badi waxa ay u dhaqmaan sidii qofkaas markaa u ahaa tusaalaha ama role modelka. Haddii ay barayaasha oo kale anshax wanaag leeyihiin, ardaydiina wax badan ayay ka faa'iidayaan, hadhow dambena ummaddii ayaa faa'iidaysa oo waayo macallimiintii waxa ay soo saareen dad u carboon ama u diyaarsan inay ummadda u adeegaan. Ilaahayna ha naga koriyo inaan noqonno dadkii lagu tilmaamay suurati almutaffifiin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصرون. marka aan mushaarka qaadanayn waxa aan rabnaa xitaa $1 inaan laga reebin. Marka xaqa ardayda ama qofka aan u shaqaynayno aan gudanaynana waxa aan bixinaynaa wax ka yar. Midaasna ma ahan wax anshax ah ama wanaagsan. Midaan afaraad waa mid dhammaan aan wada naqaano oo ah philanthropic responsibility. Waa in aan samafal samayno faa'iidadii shirkadda ay soo saarto kala qayb ka tirsan in ummadda wax laga siiyo, ama mushaarkii aan qaadanay waa inaan wax ka siinaa ummaddii oo kaleeto, ama in shirkaddii ay maalgelin samayso oo ay maalgeliso wax ummadda waxtar u leh. Tusaale aan dhahno shirkad ka shaqaysa dhismaha ayaa waxa ay bilowday inay guryaha marka la dhisayo solar la raaciyo dhismaha. Tusaale aan dhahno qaboojiyaasha lagu xirayo guryaha haddii uu xigo dhanka cadceedda ama qoraxda, in sare looga xiro solar yar oo qofka isticmaalayana ka yaraynaysa qarashka korontada. Midaas oo kalena waxaa la dhahaa philanthropic responsibility.
oo waayo kaarboonka ku baxaya hawada ayaa yaraanaya. sidoo kaleeto in shirkadaha ay sameeyaan oo kaleeto daadad hadday imaadaan ama musiibooyin dabiici oo kaleeto inay ummadii oo kale ay u gurmadaan oo qayb ka tirsan faa'iidadii ay sameynayeen ay ummadii wax ka siiyaan oo kaleeto ayaa waxaa loo yaqaanaa philanthropic responsibility. gunaanad haddii shirkadaha dowladda shakhsiyaadka ay hirgeliyaan noocyadan kala duwan ee ah corporate social responsibility waxa ay si wanaagsan u saameynaysaa waxqabadka shirkadda, shakhsiyaadkii, dowladdii iyo mujtamaca intaba. xog dheeraada oo ku saabsan qeexidda corporate fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose oo aan hadda kor uga soo hadalnay. mahadsanidin waa inuu markala dira bidmo.